madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay shir madaxeedka joogtada ah ee 13aad ee IGAD ayaa soo dhaweeyay qorshaha dib u habeynta urur goboleedka IGAD oo isku raaceen madaxda ka soo qayb gashay meertadan dowladda federaalk Soomaaliya oo garowsaneed fursadaha horumarineed iskaashiga ganacsi ee muhiimka ka dhigay dib u eegis lagu sameeyay qaab dhismeedka ururkan waxay markasta u ololeynaysay in IGAD ay noqoto madal ka soo dhalaasha himilada ay ku qabaan shucuubta gobolku kana turjunta dhammaan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dowladaha ku mideysan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambaliyay gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD mudane Cabdalla Xamduug oo ah ra'iisul wasaaraha dalka aan walaalaha nahay ee Suudaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay ahmiyadaha ajandayaasha shirkan maanta oo bisha November ay tahay 29 sanadka 2019 waxaa magaalada Addis Ababa goor dhaweyd ku soo dhamaaday shirweynihii kalfadhigii IGAD madaxda IGAD 13aad shirweynahaas wuxuu ahaa mid ama kalfadhigaas wuxuu ahaa mid muddo la sugayay muddo ka badan 10 sano aan qabsoomin maanta ayuu qabsoomay waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka IGAD iyo ra'iisul wasaarayaashooda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha South Sudan Salva Kiir wasiirka arrimaha dibadda oo Kenya matalaysay iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug shirkaasi waxa ajandihiisu ahaa maartay in la go'aamiyo qaabka cusub ee dhismaha urur dhismeedka IGAD oo la ogolaaday iyo in xeer cusub oo ay leedahay IGAD la sameeyo kaas oo dib loo dhigay wada hadallo dheeraada u baahday waxaa kaloo meesha looga hadlayay in gudoominta shirka iyadana la doorto taasoo awal ay ahayd Ethiopia 10 sano la soo dhaafay laakiin maanta la go'aansaday madaxdu isku raaceen in gudoonka shirka IGAD ay la wareegaan dalka Suudaan shirkaasi guulbu ku soo dhamaaday sidoo kale madaxweynaha waxa uu soo dhaweeyay magacaabista xogayaha guud ee IGAD mudane Wagner Kabanyahu waxa uuna ku adkeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhow ula shaqeyso hoggaanka cusub si loo gaaro higsiga muhiimka ah ee ururkeena iyo arrimaha hortaminta u leh awoodsiinta gobolka dowladda Soomaaliya waxay kaalin mugle ka qaadatay aasaaskii urur goboleedka IGAD haatanna shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed waxay u taagan yihiin gudashada doorkooda iyo wax la qaybsiga dalalka kale ee qaybta ka ah IGAD Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka Muqdisho